qaar ka mid ah madax dhaqameedka waxgaradka guurtida iyo dhalinyarada beesha degta degmada Ceergaabo ee gobolka Sanaag oo maanta kulan ballaaran ku yeeshay beerta Ismaaciil Muuse ee magaalada Ceergaabo ayaa ugu horeynba waxa ay ka hadleen Chief Caaqil maalintii shalay lagu caleema saaray gudaha magaalada Ceergaabo kaasi oo ay sheegeen inay gebi ahaanba ka soo horjeedaan isla markaasina aanu metelin iyagoona sidoo kale ka hadlay xilliga ay dooranayaan chiefka rasmiga ee bedeli doona Allah u naxariistay Chief Caaqil Jaamac Ismaaciil Muuse ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay isla markaasina kulankaasi faahfaahin ka bixiyay aqoon-yahan Maxamuud Sagaale si ku jiraan haddana arrin degdeg ah oo ay laga maarmaan noqotay inaan halkan nimaadno ayaana keenay kaasoo ku saabsan xafladii shalay Chief Caaqilkii la sheegay in la caleema saaray oo sida la yiri buuxinayay jagada Chief Caaqilka waa arrin aan gun lahayn waa qowragooyo waa talamarorsi maaha mid aanu qaadan karo waa arrin loo adeegsaday tahsiilaad ama facilities badan oo dadka qaar ay gacanta ku haystaan Chief Caaqilka taladiisu ma aha mid afar qof ay intay afka isa saarto ay guri hoostii ku dhamayso waa arrin sar ballaaran oo gunta ka soo bilaabmaya habar yoonisna gaaraya ilaa beelaha kale marka dambe ku dambeynay muddo 45 casho gudahooda ayaanu go'aansanay in lagu soo doorto Chief Caaqilka cusub oo laga galo talo mug iyo miisaan leh oo Cabdalla Xamuud hormood ka yahay habar yoonisna ay nusdambeed u tahay waxaan ugu baaqaynaa cidda ay khusayso xukuumad iyo dhaqanba in laga wardhowro talada uu reerku arrinta ka soo saarayo ugu dambeyntii waxaan ugu baaqaynaa tirada farakutirsiga ah ee Cabdalla Xamuud ee gaarka u tashaday iyo odayga nusdambeedka u ah in ay talo loo leeyahay ay ku soo biiraan sidoo kalena waxa halkaasi geestooda hadalka isaga kala dambeeyay madax dhaqameed waxgarad guurti iyo sidoo kale dhalinyaro kuwaas oo dhankooda ka hadlay beesha Cabdalla Xamuud waxa keenay hawl ka dhacday shalayto guriga maayarka Ismaaciil Xaaji Nuur oo la yiri waxa lagu doortay Chief Caaqil aan beeshu war ka hayn waxaan ugu baaqaynaa marka cid allaale cidii ay khusayso inaan warkaa wax alla wax ka jira ana marka beeshu sidii odaygii hore u sheegay waxay go'aansatay inay horta caaqil soo doorato muddo 45 casho gudahooda shalay arrintii halka ka dhacday ee afduubka ahayd ee maayirku horseedka u ahaa ee ahayd ururiska arrinta gobolkaanu gaarsiinay waanu ka hadalnay waa inta laba laga qabtaa waa in laga qabtaa dhaqanka waa in askarta laga qabtaa reerkii talada noo hayay baanu ku ognahay 45 cisho gudahood baanu chiefka cusub ku magacaabayna walba Cabdalla Xamuud reer ilaa 100 sanadood reerna siyaasadda ay hayeen waa reer Nuux reerna waa reer Ismaaciil ama waa reer Muuse inaanu diyaar u nahay maantana aanu joogno inaanu dooranno Chief Caaqil Jaamac Ismaaciil Muuse cidii noo bedel lahayd kuna keeni doono talo aanu ka midaysanahay aanayna ku dhici doonin afar afkaysa saara arrinta shalay dhacday weli ma arag mana maqal ujeedaduna waxay tahay dhaqan iyo siyaasad bay soo dhex galay waa jiir iyo bisad wax ka xumina waa imanaya shalay halka ka dhacday ee reerka lagu qoragoynayo ama aqal hoosti lagu qabanayo ummadu yay u dhiga taagin waxna kama jiraan waxaanu samaysanaynaa kii labaad ee isaga xigay ee rasmiga ahaa
muddadaannu ku dooranayno oo aannu afka isku saarayno waa 45 casho tan nahay beesha Cabdulla Xaamud inaanu jagadaa ku buuxino 45 casho inta ka horeysa saadayaashu sheegeen waxa talada noo sii haya halkii ay taalay taala Ismaaciil oo boqol jiro dadka ugu weyn oo maayarkii dawladda ee maayarka ummadda inuu afarinan intuu beelgeeyo inaanu adeeru yahay ilaahdo qasab ha lagu doorto adeer suuragal ma ahayn dhaqi mayso maanta waxa la isugu yimi in lagu cadeeyo mowqifka ah inaan chief caaqilnimadii iyo taladu meeshay taalay aanay ka wareegin oo meesheedii taalo sida odayaashii iga horeeyay sheeganna muddo 45 casho gudahooda lagu soo dooran doono cidii bedel lahayd marxuumka waxa kale loo yimi arrintii ahayd shalay qoragooyada odaygu malaha ummaddu indhaheeda waa soo qabtaa waxaan leenahay waxba kama jiraan Ismaaciilna nagu xukumi maayo kursiga inankiisana nagu karbaashi maayo warkii shalay waxa ku jiray hadallo lagu matelayo chief caaqilo aan goobta joogin oo rag leeyihiin afkooda ayaanu ku hadlaynaa taana waxaan leeyahay chief caaqiladii arrinka lagu metelay ee aan goobta joogin ee aanu igman waxaanu leenahay inay afkooda ku hadlaan ayaanu ka sugaynaa wayna ku hadli doonaan halka ka cadeerina arrinkaasi inuu ahaa qoragooyo siyaasadda hogaaminayso oo waliba uu hogaaminayo maayarka muddadiisii dhammaatay ee muddada hadda ilaa 2017 muddo kordhiska ku fadhiya golaha deegaanka waxaanu ka codsanaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inaad si dhaqsaa u kala dirto ayaanu madaxweynaha ka codsanaynaa gabagabadina waxaa halkaasi ka hadlay caaqil Cumar Cali Yare oo isaguna dhankiisa sheegay xilliga la dooranayo chiefka rasmiga ee beeshaasi waxa lagu caana shubayaa sidaanu isla garanay oo beeshu isla garatay beelweynta Cabdulla Xaamud 45 casho ayaanu u sheegaynaa ummadda inay kaga warqabaan xukuumadda waxaanu leenahay iyaduna caana shubka leeyahay wiil baa lagu caana shubay waxba kama jiraan Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV Ceergaabo